أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدي دمان dadweynaha waan salaamaya Soomaaliyeed hadda ka horna wataan ku balanay inaan barnaamijka wacyi gelinta hadii Ilaahay ma aan wadayno iyo wax sheegida dhalinyarada iyo dhisida qoysaska iyo ka digida duminta qoysaska marka hadii Ilaahay idmo maanta halkan waxaan uga hadlaynaa qiimaha guurka iyo qaabka shukaansiga hadii aan wada sheekaysiga horta marka ugu horeysa guur ereyga la dhaho wuxuu ka soo jeedaa geedi qofkii wuxuu ka guurayaa noloshii kaliya ahayd wuxuu u guurayaa nolol uu qof nolol la qaybsanayo dad dhan wax ku darsanayo marka horta geedigaas hore haduu ka xumaadana dhibkeeda leedahay waxa weeye guurku waa asaaska nolosha waa unuga ama se bilowga nolosha qofka bini aadanka haduu guurku ka xumaado nolosha ka xumaatay waa wax aad muhiim u ah waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay maartay mu'akid looga dhigay oo guursada leeyahay guurka qiimaashiisa wax la soo koobi kara maahan diinteena xataa way ka hadashaa wax badan baa laga hadlaa in uu noqdo wax loo fiirsado xataa waxa lagu leeyahay midkaad guursanayso raggi ku dooro akhlaaq iyo diin way dad badan waxa la arkay diin leh akhlaaq aan lahayn iyo dad badan oo akhlaaq leh diin lahayn ninkii baa leeyahay marka aad aragtaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa raali inaad ku noqotaan gabdhiina si laba dhihin lacag yeesho laba dhihin cidda ha ka dhasho laba dhihin digri hebel ha haysto sida maanta dad badan ay wax ku qiimeeyaan waayo akhlaaq iyo diin qofka Ilaahay siiyay wax badan buu siiyay qofkii oo Ilaahay wuxuu ugu darnaa qofka noocaasa nolol wuxuu ku noolaadaa adduunkana nimco aakhirana janno laakiin maanta dad badan baa wax ku qiimeeyaan xageeba ka shaqeeya jaamacadeeba ka soo baxay gaarigeeba wataa cideeba ka dhashay bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digayaa dhalinyaradaba qiimaha noocaas in iska daayaan oo wixii diinta islaamku nafarta wax ku qiyaasano ninkii gabar guursanayo afartii shay gabdhaha ku doorto leeraa oo li gabadha quruxdeeda ku dooro nasabkeeda ku dooro haday diinteeda ku dooro iyo maalkeeda oo waliba la yimid diinta la dooro sababtoo ah gabadha diin aad ku doorato waa qof wanaagsan oo teed bay baahaya waxay kaaga xishoonaysaa jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala xasuusis baa ku jirta kumana lugoynayso reerkay kula dhisaan reer wuxuu noqonayaa aan baqaada wiilka adna aad ku doorato akhlaaq iyo diin oo lacag ku dooran oo wax kale ku dooran uu ka nolol fiican yahay midka dhalanteedka maanta jira horta marka guurka qiimihii baa laga qaaday guurka qiimaha sulaha dadka Soomaalidana aad bay guurka u qiimeyn jireen furiinkan u nabcaayeen laakiin maanta waxa arkaysaa guriga waa la dhisay waa dumay waa guri lagu aasaasay asaga dham wax dhalanteedii been ah waa sida xuub caaro kare dhalinyarada marka waxaan uga digayaa guurka waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo baneeyay waa wax noloshaada ka bar ah waa wax guur fiican hadaad hesho noloshaada ku dhismatay dhalinyaro guursada oo waliba dad wadankii anigu waan tagay dadka hadda Soomaaliya joogo halka shay u harayba waa guurka ma sha Allah waxaad arkaysaa nin yar oo caruur dhalay oo reer leh oo asaga waliba waxba haysanin Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaas ku asturay maanta halkeena waxaad ku arkaysaa nima shaqaysta oo jaamacad soo dhameeyay oo wax haysta oo haddana aan guursanaynin waana maxar guur la'aan markay dhacdana oo waxyaalaha fasahaadka iyo zinada iyo waqtiga badiyay waliba aan la kaftay wiilashu haday qatan yihiin hore ka guursanay laakiin hadda wixii baa iska balabali noqday marka waxay keentay in guurkii uu maartay yaraado marka horta guurku waa shayga saa muhiimka ah loona baahan yahay qofku inuu ka fakaro qofku uu guursanayo qofku wax ku darsanayo idinka wax ku qiimeeynaya sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri diinta islaamku sheegasho ma ah dhaqan bay nooga baahan tahay waa inaan ku dhaqanno waxyaalaha maanta bulshada fasahaaday waxa weeye aasaaska haduu ka xumaado fasaadka badanay marka reer kala dhisaa waa unuga bulshada waa meesha nolosha ka unkabeysay hadii la aasaasi la qoysas badan oo aslaax ku dhisan bulshadu ma bahalowdeen dad wada jecel oo wanaagsan bay noqon lahayn laakiin aasaaskii baa naga lumay Allah noo soo celiyo dhalinyaro guursada waliba ninka yaraanta ku guursada waxa la yiraahdaa waa walaalka dhale ninka asagoo weyn guursado da'da fiicneed ku guursada waxa la yiraahdaa wiilka dhale oo isu ogin wiil iyo aabi ninka asagoo weyn guursada hadda waa midaan ka yaabno wadka dhalaa la dhahaa halshan qofku intuu yahay firfircoon yahay inuu guursado wax badan bay u taraysaa marka guursada aan leeyahay markii la isguursanayo hadda sheeko iyo isbarasha ka horeeyo wiilasha bal aan ku hormar maadaama ayagu mas'uulkii reerka yihiin gabdhuhu waa iska masaakiin gabdhow
nimanka aad guursanaysaan markaad hore sheekada isla wadaan anigu markaan fiiriyay 3 nooc baan u qaybiyay qaybta koobaad waa dayac iyo mid ah la yiraahdo dayac iyo daaliye iyo daryeel ninka dayac la dhaho waa markay maanta u badan yihiin dhalinyaradu intay gabdhaha been u sheegaan oo sheeko been iyo jacayl been ku abuuraan oo haniyay waan ku jeclaa haba casha meel ka sii haba ka jagsi maalinka dambe hawlihiisa ka gaaran xagga uga dhaqaaqa dayac waxa lagu gartaa reerkiina ay bar ku dhimayo hooyada ay bar ku dhimayo walaalka ay bar ku dhimayo aabaha ay dhar ku dhimayo hatta waxa laga yaabaa gurigiina inuu darqa ku barto oo soo haba meelahaas luuqaas ku iyo library carada cida ku gula balamayo hadhow markuu hawlihiisa ka gutar meel u raacday aad weydo waxa laga yaabaa hatta magac been ku sheegto oo waag dambe sheekada xumaato magaciiba lama yiraahdo adoo Cabdirasaaq raadinay ama Cali Faarax raadinay waxa uu leeyahay Maxamuud Baaldi jir dayacni kala yiraahdo astaamaad ku garanaysa waxa kamida hatta gurigiina haduu ku gula balamo inuu guriga ka qaado hoos bunteesta ku leeyahay hooyan ka baqayaay soo deg hoos baan taagana telefoon ama taxi intuu ku soo diro dayaca waa kuwa gabdhaheena maanta duleeyay waa kuwa gabdhaheena maanta intay gabarnimadii ka baabeen cilada uga tagay waa kuwa jacayl beer intay u dhiseen gabdho badan ay ku halaagsameen marka gabdho waxaan leeyahay hanida beenta yaa la idinku halaagin waagii hore oo wadankeena dhisnaa oo wadankeena aan joognay dayaca wuu yaraa sababtoo ah qofka gabdha la sheekaysanay guriga imaan jiray hadda nin guriga yimido la bartay oo waalidkii arkay oo ciddu yahay la og yahay cidda dhashay la yaqaan meesha ku shaqada la yaqaan subax xusra way adagta oo hal iyo laba ahaan jide laakiin maanta yaabi yaqaan lama yaqaan luqun madow waxa soo baxay kuwa aadan ba arag inay nin la sheekaysanayso yani bahal la sheekaysanayso qoliyahan online-ka internet iyo balada laga bartana wayba ka sii daran tahay runtii waxa laga yaabaa qof maanta kula hadlayo masawiro beer ku tusay wayna dhacday in badan maanta inuu hadhow ama odayda qoobe ama mid lugla ama nooc kale ay kaaga soo baxdo marka waxaan leeyahay gabdhow guurku waa noloshaadii ha ku ciyaar waanaad ka fikirtaa qofka wax ku darsanaysid waanaad ka fikirtaa qofka aad noloshaada ku aaminayso waxa la arkay maanta dad badan oo qof aysan aqoonso meel ula galahay maalinka dabacad ku soo dhacay marka dayacin kala yiraahdo dadkiinu ka dhunta cid kugu dayacanaya dayaca ka iska ilaalin qaybta labaad waxa way daaliye ninkaas wax ma dayaco inta badan laakiin waqtigu dhumiya daaliya la dhahaa wuu ku daalinaya gurigu iska dhex fadhiya reerku dhan waa yaqaaniin dadka kama dhuunto waxna ma soo taro waxna ma soo kordhiyo meeshana kama tago waa meesha kama taga waxna kama tare mar hadaa arti marka nin halka iska fadhiyo dadkii kale markay damcaan inay bileen wallahi hebel baa la sheekisanayo dadkii dhan waa ka xayirayaayo waqtigaagana cid loo kulminaya marka ninka daaliye la dhaho dan hadaad gabadhaas oo in hadaalin adiguna waxaad fiirsaa gabare ninka daalkiisa rafaadkiisa waqti dhumiskiisa inaad ogaatid baa loo baahan yahay haddana maanta xataa waxa jirtaba waqtiga la yiraahdo hebla wada socda years an sanooyin hatta islaamku ma qabo wax maanta labadan qof intaas oo sano isugu daba soconayaan oo waxyaalaha dhibka badan bakeenay qofka isbarta sanad isbarta marka ugu badan inta hadda run isu sheegtaan qofku wuxuu yaab baran kartaa ama sakaba yarba laakiin waxa loo baahan yahay inuu san daaliyana kugu noqon dayacana kugu noqon ninka ugu fiican oo la yiraahdo daryeel waxa la dhahaa qofkii ku keer gareeya qofka ka naxaya qofka dantaada wada daryeele waxa lagu yaqaan marka hore ku barto magacaaga barto oo cid tahay barto wuxuu ku xijaa reerkiin inuu barto wuxuu ku xijaa inuu walaalka barto hooyada barto reeraha barto reerka soo salaam guriga igee hooyo igee aabe igee dadka uu soo dhaxgalo familkaagi inkastoo hadda dadka halkan qurbaha jooga ay ceeb u arkaan arintaas laakiin ceeb ma aha waxa la ninkaad abka ugu qaan balafaaga astura qofkan aad wax ku darsanaysid oo noloshaada ku aaminaysid gabarey markii aad maanta reerkiina dadkiina kula og yihiin oo kula yaqaaneen hatta hadduu xumaan kugu sameeyo kaaga xishoonaya sababtoo qof dadkiina waa weynaa yaqaan mana xumaan kara qof wax fiican ka raba gurigiina yimid dadkiina bartay waxa weey waa qof raba inuu nolol fiican kula dhiso waa qof raba inuu maxaan ku raad nolol kula abuurto waa qof raba inuu ku soo ogaado hatta asaga ruuxiisa saas oo khayr badan waayo
gabar aad cidlo kula balantayo waxay gurigooda kaga soo tagtay iyo gurigooda wuxuu ahaa iyo reerkooda wuxuu aadan ka warqabin waa wax dadka qaribay laakiin gabadha gurigood marka aad ugu timaadid xataa dadka say isku yiin baad ogaanaysaa dadkii waayii hore guursan jiray gabdhaha xataa guriga ugu soo dhooman jireen guriga gadaashiisa ugu soo dhooman jireen ayagoo raba inay ogaadaan gabadhaas iyo waalidkeed xiriirka ka dhaxeeya noloshan hadda maanta wax walba la haysto oo wax walba iska fududaan lama haysan jirin gabadha xoolay raaci jirtay qoriyay soo guri jirtay aribay soo aroorin jirtay waxay ahayd gabar maanta saaksi oo baxdo galabta soo imaanaysa xoolaha markay gabadhaasi keento isla markii haday gabar fiican tahay waxay timaadaa ayadoo miro iyo waxyaalihii baadiyaha ka baxay oo kala nooca ilmahooda u wada ama haday magaalo joogto ayadoo nacnac iyo buskud iyo waxyaalo yar xalwo iyo u soo gaday ilmahooda ilmuhu ku soo kala yaacaan Allah baayaa soo socotaa dhaha waa gabadha fiican oo ilmihii jecel yihiin oo reerkooda jecel yihiin oo wanaagsan midda kalena mar alla markay soo gashaa la kala dhuumanaya kaasa habartu dhinaayay idin dilna ka carar bay qabtaay marka waxa weeye xataa ninka raftiisa guriga imaashihiisa danta ugu jirta waxa weeye gabadhan iyo xiriirka ka dhaxeeya reerkooda iyo xiriirka ka dhaxeeyay hooyadeed waad ogaadanaysaa way qof markaad gurigiisa joogtid wax badan oo banaanka ogaan baad ogaanaysaa marka waxa aad leeyahay ninka la yiraahdo daryeele waa ninkaas wanaagsan gabdhow oo gurigiina reerkiina imaanaya oo dadkiina baranaya oo waxa uu soo sheegay ay ka danta tahay ogaada oo ka wax ku darsado oo maanta dhibka jira iyo dhibaatada dhacday waxa loo aqoon iyo qof meel loo raacaan lahayn iyo qof markii uu suuraba ku yeeran hadhow taleefankana ka bedelnahay inuu meel kale ba ka yimid baa laga yaabaa maantana waxaaba dhacayba dad aadan xataa asalkooda aqoonin oo dhibaato badan dadka u keenay marka guurka laga fakaro waa noloshii qofka waa wixii aayaha ku ahaa awlaadaada meeshay bari ku abtirsan lahayd weeye meeshay bari aad lahayd weeye waxaad leeyahay gabdhow ka fakara guurka dhalinyaro dhalay guurka ka fakara insha Allah marka dambana waxaan ku soo xijin doonaa qaybaha ayaguna bal gabdhow u kala baxaan maadaama marka aan gabdhihii saddexdaas u qaybi wiilashii gabdhaha la sheekaysan saddexdaas u qaybinay insha Allah gabdhahana waan qaybin doonaa ayaguna ruuxoodu ma sharyara marka insha Allah qaybta labaad nagala socda hadii Rabbi yiraahdo Allah ha idinku anfaco jazakumullahu khayr fadhigeyskin